kadib markii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maleeshiyada al-shabaab ka xoreeyeen degmada Awdheegle waxaa dib u soo laabtay nolosha magaalada iyadoo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu ka hirgeliyay mashaariic dhowr ah. xarunta uu ku shaqeyn doono maamulka degmada Awdheegle iyo iskuul si casri ah loo dhisay ayuu maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ka hirgeliyay halka iyadoo hadda kadib uu maamulka degmada si buuxda ugu shaqeyn doono bulshada si loo daadajiyo nidaamka dawliga. odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ayuu gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose kula dardaarmay inay ilaashadaan xarumaha danta guud isagoo ku booriyay waalidiinta in caruurtooda ay geeyaan iskuulka ay dawladda u dhistay. gudoomiyaha degmada Awdheegle iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan Awdheegle ayaa si wadajir ah u sheegay in bulshada ay hadda heleen xarumo dawladeed oo lagu adeego. waxaan aad ugu faraxsanahay mashaariidan oo horumarineed oo degmada laga fuliyay oo ah xaruntii maamulka iyo iskuulkii oo dayactir ballaaran lagu sameeyay. waan ku faraxsanahay anaga maamulka gobolka noola shaqeeyay iyo dawladeena koonfur galbeed Soomaaliya noola shaqeysay oo ugu horeeyo madaxweynaheena Cabdicasiis Xasan Maxamed. waan ugu mahad celinaynaa maamulka gobolka Shabeellaha Hoose run ahaantii waa uu ku amaanan yahay maamulka degmada Awdheegle sidoo kale dhammaan shacabka degmada tan Awdheegle iyadoo ku nool mahataas lamida ayaan u jeedinaynaa sidii dhow ay nolol shaqeeyaan sida hagar la'aanta ay nolol shaqeeyaan sida walaaltinimada leh ay nolol shaqeeyaan run ahaantii ayna u dareemeen waxyaabaha ka maqan oo ah waxyaabihii noloshooda aasaasiga u ahaa. gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mudan Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa sheegay in degmooyinka iyo deegaanada laga saaray al-shabaab ay si degdeg ah ugu dhisayaan xarumaha muhiimka ah dawladda iyo bulshada. Awdheegle ay ka mid tahay magaalooyinka soo kabanaya isagoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ku amaanay inay xasiliyeen Awdheegle shacabkana ay nabad ku maaloonayaan. waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo runtii dhiig iyo waqtiba ku bixiyay in mashaariicdan laga fuliyo degmada Awdheegle oo dhib weyn ay runtii dawladda ay ka soo martay iyo shacabka iyo maamulkaba. waxaan rabaa inaan kula dardaarmo shacabka reer Awdheegle maadaama sanado fara badan nolol mugdi aad ku jirteen oo maanta aad haysataan ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed oo diyaar u ah dhiigoodii waqtigooda inay idinku bixiyaan, maamul degmo diyaar u ah in habeenii maalin ay idin adeegaan, dowlad goboleedka koonfur galbeed oo uu hogaamiyo madaxweyne Cabdicasiis oo diyaar u ah inuu fuliyo ballantii uu ka qaaday shacabkan reer koonfur galbeed ee Shabeellaha Hoose ku nool taasoo ahayd in shabaabna laga dulqaado adeegyadii dawligana fadhigooda loogu keeno kan uu yahay kuwii ugu horeeyay degmada Awdheegle ay nasiib u yeelatay. waxaan rabnaa ayagoo ka faa'iideysanayo fursadda dowladda federaalka Soomaaliyeed oo runtii qorshe qaran u dejiyay guud ahaan gobolkan Shabeellaha Hoose sida looga saari lahaa kooxaha nabadiidka al-shabaab iyo kuwa kale ee dhagraya shacabkan Soomaaliyeed oo 24 saac dhiigooda ku banaysanaya meel walbaba inay garab istaagaan maamulkooda dawladooda iyo ciidankooda si adeegyadan bulshadan ay uga faa'iideystaan ay u ilaashadaan adeegyadan bulshada halkan laga fuliyay. ujeedada ugu weyn laga leeyahay waxay tahay dawladnimada in dadka la gaarsiiyo fadhigoodana lagu gaarsiiyo.